بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن داوديال halkani waa wararka dalka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada idin haynana waxaa kamid ah madaxweyne Farmaajo wafdi hogaaminayo oo goordhow gaaray magaalada Garowe ee xarunta Puntland ra'iisul wasaare Khayr oo magaalada Garowe kulan kula qaatay laba kamid ah madaxda maamul goboleedyada dalka banaanbax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho iyo rasaas lagu furay dibadbaxayaasha maxkamadeynta 10 nin oo loo haysto dilkii iyo kufsigii loo geystay Caaisha oo bilaabatay Somaliland oo gacanta ku dhigtay qaar ka mid ah rag dil hore uga geystay gobolka Sanaag xisbi siyaasadeed cusub oo hogaaminayo Taabid Cabdi oo maanta si rasmi ah loo diiwaan galiyay iyo diyaarad ay la socdeen in ka badan 140 ruux oo dhacday qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin haynaa ee u diyaar garooba wararkaasi oo faahfaahsan waa maalinimo Sabti 4 bisha May sanada 2019 ku soo dhawaada daawadayaal wararkaasi oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdu hogaaminayo oo qorshuhu ahaa inay tagaan magaalada Garowe ayaa halkaasi gaaray madaxweynaha wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland iyo dadweyne kala duwan oo halkaasi madaxweynaha ku sugayay waxaana xubnaha soo dhaweeyay ugu horeeyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayr ayaa magaalada Garowe uga qayb galaya shir xasaasi ah oo u dhaxeeya dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada qaybta ka ah dowladda shirkan ka furmaya magaalada Garowe ayaa ku soo aaday xilli khilaaf u dhaxeeya dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo xilligan jiro waxaana shirkan looga hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin ammaanka doorashooyinka iyo dastuurka dhinaca kalena ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr ayaa magaalada Garowe kulan kula qaatay laba ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ee ku sugan magaalada Garowe magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa lagu wadaa inuu ka furmo shir xasaasi ah u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada shirkan ayaa looga hadli doonaa arrimo badan oo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin sidii xal looga gaari lahaa madmadowga u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaarkood iyo sidoo kale arrimo la xiriira doorashooyinka iyo wax ka beddelka dastuurka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr oo shalay gaaray magaalada ayaa maanta magaaladaasi kulan kula qaatay madaxda maamulada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed oo xiriir u dhow la leh dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaana la sheegay in ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada ee kulanka ku yeeshay magaalada Garowe ay ka wada hadleen sidii maamuladaas ay isku garab istaagi lahaayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya si loo dhameeyo khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamulada Puntland, Galmudug iyo Jubbaland waxaa la sheegay in madaxda maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle ra'iisul wasaaraha ay u muujiyeen sida ay ugu qanacsan yihiin siyaasadda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo la filayo in kulanka u dhaxeeya madaxda maamul goboleedyada xubnahooda kale iyo ra'iisul wasaaraha uu markaasi ka furmo magaalada Garowe magaalada Muqdisho banaanbax ayaa ka dhacay maanta magaalada iyadoo rasaas lagu furay dibadbaxayaasha waxaa maanta banaanbax rabshado watay oo ka dhacay afaafka hore ee dekedda magaalada Muqdisho waxaana banaanbaxa dhigayay xaasas iyo waalidiin ay ka geeriyoodeen askar ka tirsaneed ciidanka dowladda hooyooyin badan oo banaanbaxa dhigayay ayaa ka cabanayay in muddo dhowr bil ah aan la siin xuquuqdii ay horey dowladda u siin jirtay ee askarta geeriyootay waxaana ay ugu baaqeen dowladda inaysan silcan ku fiirsan dibadbaxayaasha ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhana xuquuq la'aanta haysata waxaana ay sheegeen in ragkii qabay iyo wiilashoodii dhinteen iyaga oo difaacaya dowladda ayna nasiib darro tahay in xuquuqdii raggoodii iyo wiilashoodii geeriyooday aan la siin ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo soo gaaray goobta banaanbaxa ay ka dhigayeen hooyooyinka ayaa rasaas xooggan ku furay dibadbaxayaasha waxaana in muddo ah rabshado uu ka taagnaa afaafka hore ee dekedda Muqdisho hooyooyinkan maanta banaanbaxa ka dhigayay afaafka hore ee dekedda Muqdisho ayaa horey sidaan oo kale banaanbax uga dhigayay afaafka hore ee xarunta madaxtooyada Soomaaliya maxkamadeynta 10 nin oo loo haysto dilkii iyo kufsigii loo geystay Caaisha ayaa bilaabatay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa waxaa saaka ka bilowday dhageysiga dacwadaha loo haysto 10 nin oo lagu soo eedeeyay in kufsi iyo dil argagax leh ay u geysteen Caaisha Ilyas oo ahayd gabar yar oo 12 sano jir ahayd dhageysiga dacwadda eedeysanayaasha ayaa ka dhacday hoolka xarunta gobolka Nugaal waxaana hoolka dacwadda lagu dhageysanayay ku sugnaa wasiirro ka tirsan Puntland ehelada Caaisha ehelada eedeysanayaasha iyo sidoo kale dad kale oo dacwadda dhageysanayay
dhinaca iyo Somalilandna waxaa la sheegay in ciidamada ammaanka ee Somaliland ay gacanta ku dhigeen qaar ka mid ah raggii dilay saraakiil dil lagu geystay gobolka Sanaag. Wararka naga soo gaaraya deegaano ka tirsan gobolka Sanaag ayaa sheegaya in ciidamada booliska Somaliland ay gacanta ku soo dhigeen qaar ka mid ah raggii dilay labadii sargaal ee dhawaan lagu dilay deegaano ka tirsan gobolkaasi. Warar aan helnay ayaa sheegaya in howlgalla ay fuliyeen ciidamadu ay ku soo qabteen ku dhawaad 8 nin oo ku eedeysan dilkaasi, kuwaas oo ku dhuumaalaysanayay buurta Buurdhaab ee gobolka Saraar. Ciidamada booliska ayaa waxaa sidoo kale ay gacanta ku soo dhigeen 4 gaari oo ay wateen raggan la soo qabtay, iyagoo weli baadigoob ugu jira rag kale oo firxad ah oo iyaguna ku eedeysan dilkaasi. Ilaa hadda ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay ciidamada booliska Somaliland oo ku aadan howlgalladan ay ku soo qabqabteen dableydii ka dambeysay dilkii labada sargaal. Xisbi siyaasadeed cusub oo uu hogaaminayo Taabid Cabdi ayaa maanta si rasmi ah loo diiwaangeliyey. Xisbiga Awoodda Shacabka ayaa maanta ku soo biiray axsaabta siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya. Guddiga doorashooyinka ayaa maanta shahaado siiyey dhowr xisbi, waxaana si gaar ah dadka u soo jeeday xisbi uu hogaaminayo duqii hore ee Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed, kaasi oo sidoo kale ay ku jiraan siyaasiyiin badan oo horey xilal muhiim ah dalka uga soo qabtay. Xisbiga Awoodda Shacabka waxaa sidoo kale ku jira siyaasiyiin hore, aqoon-yahano, ganacsato iyo dad badan oo qiimo ku leh bulshada dhexdeeda. Taabid Cabdi ayaana la sheegay inuu arrimaha xisbigan ku mashquulsanaa tan iyo bishii Janaayo ee 2018. Gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Banaadir Cabdullaahi Cilmi Xaaji Ereg oo haddana ah gudoomiyaha ku-meel gaarka ee xisbiga Awoodda Shacabka ayaa maanta ka gudoomiyey guddiga doorashooyinka qaranka shahaadada xisbiga. Dad badan ayaa aaminsan inuu xisbigan heli doono rabitaan bulsho oo xooggan, iyadoo laga cabir qaadanayo adeegyadii uu Taabid Cabdi u qabtay shacabka muddadii uu hayay xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo sida ay weli shacab badani u jecel yihiin. Siyaasiyiinta Soomaalida ayaa intooda badan isha ku haya in laga guuro hanaanka qabiilka ee 4.5 iyadoo loo gudbayo in lagu tartamo nidaamka xisbiyada badan. Beesha caalamka ayaana sidoo kale xoog iyo xeeladba ku bixinaysa in saamiilayda siyaasadeed ee Soomaaliya ay arrintan ka dhabeeyaan. Ugu dambeyntiina diyaarad ay la socdeen in ka badan 140 ruux ayaa dhacday. Diyaarad nooca rakaabka qaada ah oo ay la socdeen 143 qof oo isugu jira rakaab iyo shaqaalaha diyaaradda ayaa ku dhacday webi ku yaala meel ku dhow garoonkii ay doonaysay inay ku degto. Diyaaraddan oo nuuceedu ahaa Boeing 737 ayaa ka timid dalka Cuba iyadoo ku socotay waqooyiga gobolka Florida. Mana jirto wax dhimasho ah ama dhaawac ah sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan maamulka Florida. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in diyaaradda ay si kedis ah uga baxday garoonka qorinta aysan ku dhicin webiga St. Johns River, lamana oga weli waxa sababay shilka diyaaradeed. Waxaa socda baaritaan lagu ogaanayo waxa sababay shilkan diyaaradeed ee ka dhacay dalka Mareykanka, waxaana shilkan uu argagax badan ku abuuray rakaabkii diyaaradda la socday. guud ahaan daawadayaal saaxiibayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa war wixii dal iyo dibadba inaga soo gaaray oo aad kala socoteen wararka dalka. Inta warkankiisa xiga aan ku kulmi doono, dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.